وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ثم ما بعد. حين كسو جرني كتابك الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وحين نكجرني الكبيرة الثانية كبيرة اللباد حديث كتبناد مركين مريني ووقت سقالات ووقت بإنقدعي حدرسينا وكبل مني حديث كتبناد. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. حنبينا يقول صلوات الله وسلامه عليه: إذا التقى المسلمان لبدا مسلم هذي كلمان بسيفيهما سيفه ذاك كلمان. سيفتو وآلدي وقتك غالبك وهيد اللي قد دغالمي، لكن wax kasto oo ay ku dagaalamaan hadii laba muslim ay kulmaan falqatilu yani mid kale waxdilay iyo wal maqtulu mid kale dilayba fi naarta ay ahaanaya. qila waxa la yiri: ya rasuulallah, rasuulka ilaahay, oo hada alqatilu midkan waxdilay amruhu waadih, arrinkiisu waa cadiya, waan garanay kan waxdilay. فما بال المقتول مدكن لدلي حال كيسو محويهي حال وقال إساق. قال وحير النبي: إنه كان وحوها حريصا مدكو دداليا على قتل صاحبه صاحبك دلكي سمدكو دداليا أيها. حديثكم حين كفى إذي سننا فلك روح مسلم كدلكيسا إن أنقعنك لي لقى جيسا حي لو حل حسابي محي نيدي. إنه كان حريصا على قتل صاحبه وحوها مد دلك صاحبك كود داله. طيب، والحديث تمر سردينه أيان كهذا دون وحكوش رفيقين. وقال صلى الله عليه وسلم: نبي قول: لا يزال المرء الروح كسول ما في فصحة أي في وسع واسع وكسغيه. دينتي سسين نشاط أو في فرعون cibaadaadkiisa inuu u gudanayo fi fushatin shay waasi'a inuu kaga sugan yahay min diinihi diintiisa uu kaga sugan yahay ma lam yatanadda ay ma lam yusib intaanu asibin bidamin haram dhig xaraana intaanu asibin oo ku dhicin ruuxu diintiisa wuxuu kaga sugan yahay waasi'a buu kaga sugan yahay. macnaha cibaadadii baa u dhandhamaysa, dhulkuna ku ciririyomi maayo. daacada iyo cibaadada Allah subhanahu wa ta'ala midiba mid bay u dhiibaysaa. laakiin ruuxu marka uu dhiig galo nolosha ayaa ku ciririyomaysa, daacadii iyo cibaadadiina wuu ka fogaanayaa. nabigu marka wuxuu leeyahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi: laa yazaalu almar'u ruuxu ka suuli maayo fii fusxatin ay fii wuscin waasicin uu kaga sugan yahay من دينه دينتي سو كغسوغن ما لم يتندى أي ما لم يصيب إنتان أصيب بدم حرام ليق حرانا إنتان كردعين. حديث هو حديث صحيح وإمام أحمد في مسنده كورن وابن ماجه أيا ورن يا والحاكم أيا سجن ورن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: نبي وحول: لا ترجعوا هولا بنينا بعدي أنيق قداشي كفارا قالوا هولا بنينا يضرب أقرع بعضكم بركين رقاب بعض بركك لو قورها كقرع. حالوا لك إذا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يدعو أنه أقنع يديقوا إنه يهي معصية كبيرة من الكبائر. حالو لجيدا أما أفعاشي قالدا هالشبهنا
ama waxaa loola jeedaa kufrigani waa kufrun duuna kufrin weeyo waa macsiyo iyo kabiiro weeye weyn saa darteed kufriga ayaa qaybsamo midna waa midka diinta lagaga baxayo midna waxa weeye waa mid macsiyo iyo kabiiro ah fariintan weliba nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ahmiyadda ay leedahay boqolkii kun ee qof ee soo xajiyey ee carafo taagnaa buu wuxuu ku yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ina dimaa'akum wa amwaalakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada wa fii baladikum hada laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd ayuu ku yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka ahmiyada ay leedahay waxaad ka dareemaysaa dardaarankii nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ummaddan muslimiinta uu kaga tegay bay ahayd khudbooyinkii xajka uu jeedinaya xajatulwadaac uu jeedinayay aad buu ugu soo celcelinayey xadiisku waa xadiis saxiix ah oo yacni markaa aad dareemaysaan inuu yahay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ay warinayaan وقال بشر بن مهاجر باوحوري عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوري لقتل المؤمن روح مؤمن كادل كيسا أي أعظم كون عند الله إله سبحانه وتعالى أكتيسا من زوال الدنيا الدنيا إني سوشو الدنيا أردني إني سوشو وماشا أي كبحضو جدول كنوريات أي كبحضو إلهي أكتيسا وحقي ما كمله laakiin maxaa ilaahay agtiisa qiimo ka leh waxaa ku weyn hal qof oo mu'mina ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ku weyn halkaa qof ee mu'minka ah ee la dilayba adduunyada oo dhan oo la baabi'iyo taasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa kaga weyn xadiiska waxaa ku jira ibraahim nin la yidhaahdo ibraahim ibnu muhaajir ayaa ku jira oo nasaa'i uu yidhi ibraahim ibnu muhaajir laysa bilqawiyi in xoog badan maaha laakiin waxaa xoojinaya riwaayada kale shawaahid kaluu leeyahayoo la zawaalu dunyaa yacni adduunyada oo suusha ayaa ahwanu cala allahi min qatli rajulin muslim nebigu wuxuu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh riwaayo kale la zawaalu dunyaa ahwanu cala allahi min qatli mu'minin bikayri xaqin riwaayadkaasa xoojinaya saxiixuljaamicu saqiir yacni 5,075 ilaa 5,076 وقال عليه الصلاة والسلام نبي وحوله صلوات الله والسلام عليه لا يزال المرء الروح كسول مايو في فصحة واسع إنه كسوغنيه يعني واسع وكسوغنيه من دينه دينتي سو كسوغنيه ما لم يصيب إنتان أصيب دما حراما ديق حارانا إنتان أصيب دينتي سوى واسع إيمانكي سو سيادة يا عبادتي ضاعي أفريسا لفظ بخاري بإسكالي طيب وقال عليه الصلاة والسلام نبي وحوله صلوات الله والسلام عليه أول ما شيمتك وقهرية أو يقضى الحكم بين الناس ذاتك دحدود الحكم يعني آخر مرك لك الحكم يا خلائق ذا إلهي أقر سوري في الدماء ديقا قوي سيالي سوا فتنا يا مركا يعني حديثي كلي أها النبي صلوات الله وسلامه عليه وحده أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة حالي سوا فتنيا إلهي سبحانه وتعالى محكمة دي سعادلك بني آدم كي مخلوق مركو ربي سبحانه وتعالى أكل قرسوري وحنا وحوي وحقوق إلهي سبحانه وتعالى أوليه وحنا وحوي وحقوق أي كدحيس محي بني آدم كي آدمها كدحيس يعني وحي حقوق ذا الله سبحانه وتعالى يتكاليفتي شرعك هيد سؤال لويديو أدونك مؤمنك وحوقه الرئيسة صلاة دي سيوقه الرئيسة أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله أما حقوق ذا بني آدم كإيا قرصور كالوكال قرصوريو وحاوقه الرئي وحل ويديو ديقاقي يوحي حقوقه يسكولها ينبع الوكال قاضي طيب حديث بخاري في صحيح كورنا يا كتاب الديات باب قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما
وقال فراس وحيري عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن عاص وحكوري قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحيري أكبر الكبائر ذنبيذا كبائرته وحاوين الإشراك بالله إلهي سبحانه وتعالى والله الشرك الصمعي حقوق دي إلهي ويسكالها يعدك للولقي بيه وقتل النفس النفتي إن لدله يعني إلهي ديق هذا وكاحرمي وعقوق الوالدين لبدا والدين عاقل لقل نقضهم أساقنا كبائرة حبض أترين دونا إمامك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وخاربا في صحيحه كورنية يعني كتاب الأيمان والندور بكورنية باب اليمين الغموس باب كاسو كورنية الرقم كان لحكم بقل تضباطا يشان من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أي كورنية وقال وحيد حميد بن هلال أنبأنا نصر بن عاصم أنبأنا عقبة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيد إن الله سبحانه وتعالى أبى علي وإجديدي يعني محو إجديدي أبى علي توبة منع توبدي سو إجديدي قتل دلي مؤمنا روحي ولكع دلي توبدي سأل سبحانه وتعالى وإجديدي طيب إن الله أبى علي من قتل مؤمنا قالها ثلاثا صدح جرب النبي صلوات الله وسلام عليه وهذا كاسنا على شرد مسلم شرد مسلم بو هذا يعني حديث كان ابن أبي شيبة في المصنف كورنية والنسائي في سنن الكبرى أيكور والإمام أحمد في مسنده أيكور ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وأبو يعلى في مسنده وابن حبان يقير كتبا ورنية وحو حديث كان النبي كله صلوات الله والسلام عليه إلهي وإجديدي روح مؤمن روحي ولكع أدلي توبدي سأل وإجديدي توبدنا وحين أجنهي ما عدا وحي الشرك كسو هري قال لماذا يعني هدي إلهي كورو هي روحه هدو كردنتو إساقو أن كتوبت كينين أو كردنتو إنو يالهم حي تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له حال لقى جوابي يا مركا سي معتقد كأهل السنة مركا الله وافتشيه حال لقى جوابي توبديسو أقبلتان كيدو وحيكو حرنتها شروط بيكو حرنتها iyadoo ilaahay subxaanahu wa ta'ala xuquuqo iyo aan la soo marin oo wixii xuquuqaha lagu lahaa aan laga gudin jannada ilaahay subxaanahu wa ta'ala si yaani marka bisabqi uqubatin marka ma galiyo in wixii xuquuqa lagu lahaa laga soo jaro dilka nafta ruuxa muslimka dilkeeda waxa ka ratibmaya saddex xaq koowaad ee ka ratibmaya waxa weeye وروحا آدي شيء حقيسي حق لبادنا وحويه واددك قرابة إيا روحا لحلكي سلها أولياء المقتول حق أي لهايين كاسمرك وحاد كغفة كان يسادي أما قصاص أما إنا يكو عفيان أما إنا ديسيسو معاكو صهري حق الله حق إلهي حق إلهينا وحاد كغفة كان يسادي توبة آد الله سبحانه وتعالى وتوبة كنته أو توبة نصوحة آد لتماد حقي بن آدم كإيا ورسدنا محاد كفا كطي إن آد قورت هذا ديبته أو لقو عفيه أما دي اللقاقاته أما لقو دله محا صهره قفك آد شي حق إسي أساقو حقه كوسو قيا أساقو حقه تاقيا هيو نصوص وعيدك هي يعني معناها أي تلمام يا وحوليه سقول ليجي كذا أيو إيمان يا ربي وبالويدي وحيد لي فسووا حق سوى كوها يستا حضان إلهي سبحانه وتعالى كعفين واستجر رالجلين الله سبحانه وتعالى أنتوا رالجليو حقوق وكرها للنقضاء الله سبحانه وتعالى يا ثوابي أجر وكرها للنقضاء أن الله كاجس برستيني وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوري ما من نفس مجرته النفتاس وتقتل لدلي ظلما ظلم لو دلي مجرته إلا كان وحاهانيا على ابن آدم إن آدم دوشي سوحاهانيا
in aadankii alawali horreeyey waxaa ahaanaya kiflun ay nasiibun qayba ahaanaysa oo min damihaa dhiiggeeda uu ku leeyahay sabab liannahu maxaa yeelay awalu man ruuxii ugu horreeyey buu ahaayo sanna alqatla dilka jideeyey marka cid kastoo sunno iyo dhaqan xun jidaysa cidda dariiqaa ku raacday dembigeeda waxbuu ku yeelanaya ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaama wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilmin in aadam kii dilka geystay ee bini aadamka dilka baray naf kastoo bini aadana ama ruux kasta oo markaa xaqdarro lagu dilo dilkiisa qayb buu ku yeelanaya maxaa yeelay liannahu awalu man sanna alqatla waa ruuxii ugu horreeyey dilka jideeyey muttafaqun calayhi وعن ابن عمر عبد الله بن عمر وحا لغا وري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو كوري قال وحو النبي يري من قتل روحي دل معاهدا يعني الروح بلن لغو لجر معاهدا مركل ليه يعني إمام كمسلمين تعاهده عليه إمام المسلمين معاهدا مركل إلى هدنا يعني وحوي إستقى مسلمين تبلن لقالي مركل من قتل معاهدا معاهدا وإسكبه لم يرح كما يعني لم يرح ما أريو أما لم يرح لما أرسيو أما لم يرح ما أريو صدح والود بديه الجنة جنة ما أريو يعني لم يرح ما أريو أما لم يرح لما أرسيو أما لم يرح ما أرصدو رائحة الجنة جنة عرفت يدي أرتي هذا محلو وإن الريحة أرتيدنا توجد وحالقها ليا من مصيرة 40 عاما يعني مسافة أفرتن سنة الله صعده مركز أجرتو جنة عرفتيدا إيا أرتيدا إيا أدقون كيدا هيليسا لكن استقوا مهلي محال لوغا جيدا مقل يويا معني أخرجه البخاري باسو صاري والنسائي حديث كان ضمن مركان أبو هريرة عنها عنه وأن معناه كجرة المام دون وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة وحال قوري عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحكوري قال وحوري ألا هو يا من قتل روحي دل النفس النف معاهدة يعني معاهدة ولا لبلمي لها يوسقناتي ذمة الله الله سبحانه وتعالى دمديس يا مغنتيسو وذمة رسوله رسولك مغنتيسو أي يوسقناتي فقد أخفر وحوش بي ذمة الله الله سبحانه وتعالى مغنتيسو ولا يرح يعني لما أرسيو رائحة الجنة أرت الجنة إيا عرفتيدا وإن الريح أرتيدنا لا يوجد وحالقه ليا من مسيرة 40 خريفا أفرتن ديرود ميل لو سعودان لقه ليا صححه الترمذي طيب حديث كان شيخ ناصر المالكي ورا الضعف بوكو حكم شن كنت طبقل إيا كنتن يلبو يعني جامعي محوها صحيح ضعيف الجامعة لكن شواهد كلا يا حوشينيسا صحيح هذا أيونكو صحيح يلي حكمك يعني ذنبه مركو شواهد هلي لبكون صدح بقول إيا كنتن يليح رقمك شواهد ولي أنه حكم من حديث أبي بكر ومن حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أي حوشيني ضدك dhiigoodu aanu bannaanayn qofkii muslimka ahaa waad soo ogaateen gaaladana afar asal ahaan ma bannaana dhiigoodu ma bannaana afarna cuhuud iyo ballan bay ku xiran yihiin afartaan dhiigoodu marna aanu bannaanayn waxa weeye ilmaha yar iyo haweenayda haddaanay dagaal ku jirin iyo odaygii weynaa ee cutushka ahaa iyo raahibkii kaniisadda ku jiray afartaa asaalatan ma bannaana yacni saddex kalaa jira oo aanay iyadana heshiisyo lala galay aanay yani darteed dhiigoodu yani marka ay u helayaan cismo iyo dhowrsooni iyo dhiigooda iyo naftooda in loo badbaadiyo waxaa ka mid ah addimi midka la yidhaha dimiga loo yaqaano waa midka dowladda muslimiinta ku hoos noolo iyagu jisyada ay ka qaadaan hadda ma jire ilaahayna uu yidhi xataa yucdu ljisyata can yadin wahum saaqiruun kalabaad waxaa la yidhaahdaa
mucaahad baa la yidhaahdaayo waa midka dowladda muslimiinta ama bulshada muslimiintu ay ballanka la gashay waa kan xadiiska hadda uu tilmaamayo ka saddexaadna waxaa la yidhaahdaa almustamin minkaa la hoos dhigay musta'min waxaa weeye bulshada muslimiinta ama si guud ha ahaato ama si gaar ahaaneed ha ahaato ama qof ha ahaato qofkaasi hadduu doono rag iyo dumar ha ahaadee ayaa qofkan keenay magangelyuu siiyey shaquu u qabanayaa asagaa keenay magantiisa in loo dhaafo asagana ma bannaano maganta ma taqaani dadka waaweyn waa garanaya waxaan u malayn laakiin dhallinyartu magantaa inaanay garanayn ayib waxaa ku sugan xadiiskii yacni umuhani baa waxay magan gelisay fatxu maka 2 nin oo dumaashiyaasheed ah ay guriga ku xidhay xataa kuwan anaa magan geliyeen cali baa damcayn intuu kala tuuro ilaaha haween baa tahay maadaa wax magan gelin kara nebigay u tagtoo weydiisay wuxuu nebigu ku yidhi waanu nabadgelinay oo badbaadinoo samata bixinay ciddaad badbaadisay umuhaniyey marka ama qof baa keensaday ama shirkad baa keensatay ama haddii ilaahay kuu roon yahay in markaa magantiisa loo dhaafo oo lagu xadgudbo marka ma bannaan masaladan waxaa hadda fiqigan yani mucaasarka ah ka ratibmaya yani wakhtigan casriga ka ratibmaya muslimiintu iyagu ballamaha ay la galaan gaalada la galaan muslimiintu markay aqaliyaad yihiin oo yani meelo iyaga lagaga awood badan yaho aqaliyaad ay yihiin heshiiska aad yani la gashay ummadaha la gashay ma burin kartid heshiiska aad la gashay yurub baad tagtay maraykan baad tagtay muxuu ahaa ingiriiskaad tagtay australia tagtay heshiis baad la gashay heshiiskaad la gashay waxa weeye baasaboorkan iyo caqli ay ku siiyeen iyo muxuu ahaa waxaan ay ku siiyeen waxay kuu siiyeen waddankooda inaadan dhib aadan u keenin bay kuu siiyeen ayib haddaad marka ballantaa ka baxayso wa imaa takhaafanna min qowmin calaa khiyaana fambid ayadda akhirkeedi muxuu fambid ilayhim calaa sawaa utuur yani ballantii ogeysiyo waxaa tiraa bahalkaadi dukumentigiinni waa kan ballantiinniina waan ka baxay kuma jiro iskaan siiya ama wixii intaa ka soo hadhay lama ogola sharcigu ma ogola وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوري من أعان روحي أكالمي على قتل مؤمن روح مؤمن دلكي بوكالمي بشدر كلمة كلمة بركيد بوكالمي لقي الله إلهي بلكل ما مكتوب يضعي كقرنتهي بين عينيه لبدي سئندوت آئس وحكقوستي من رحمة الله حديث إلهي وكقوستي xadiiskan wuxuu tilmaamayaa qofkii qof muslima dilkiisa ugu kaalmeeya kelmad barhkeed waarninka dil bay ahayd maxaa kaa soo baxay waarninka intii kale ma dhammaystirmin ayib wuxuu leeyahay maalinta qiyaame wuxuu yimaadaa iyadoo indhihiisa dhexdeeda ay ku qoran tahay naxariista ilaahay wuu ka quustay ibnu maaja werinaya imaamku laakiin kama tegina wuxuu yihi wa fii isnaadihi maqaalun sanadkiisa maqaal baa ku sugan ma tabar badna yaziid ibnu abi siyaad ashaami baa ku jiro munkaru lxadiisa waana daciif xadiiskani sheekh albani wuxuu ku daciifiyey daciifada 503 وعن معاوية رضي الله عنه قال وحده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم marka xukun ku dhismeen mar haduu xadiisku daciif noqday waxaan maqlay buu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi yaqulu isagoo le kullu dhanbi kasta عسى الله إلهي وحمدني سبحانه وتعالى أن يغفره إنه دافو إلا الرجل ننكي مويانه ننكاسو يموت دنتي كافرا قال لما كو دنتي روح قال لما كو دنتي دي إلهي ودافي ماي أو الرجل أمننك ويقتل الدلي يعني الدلي مؤمنا روح مؤمنا متعمدا سكسة أو لكعن الدلي أخرجه النسائي باورينيه صحيح سنن النسائي أيوكو صحيح يلي صدح كنت ضوبقل يسقال يتمرقم كصحيح هذا شنبقل يكوبيتون حديث كان مركب مشكل وإن لقيت شوابا اللوبة هي معتقد كأهل السنة اللوافجية إلا دلكو حكم دي وكبيرة من الكبائر حلوش إذا كل ذنب وكأن المراد كل ذنب ترجى مغفرته
dembi kastoo ruuxa bini aadamka ka dhaca hadduu ilaahay subxaana wa tacaala u soo noqdo oo toobad keeno ilaahay waa ka aqbalaya toobadda wuu ka aqbalaya ibtidaa'an isla markiiba waa laga aqbalaya yacni bilowgaba waa laga aqbalaya ilaa rajulun qatala mu'minan nin mu'min dilay oo ulakac isagu u dilay asaga laga aqbali maayo maxaan laga aqbalayn toobaddii yacni bilaa sabqi cuquubatin ayadoo cuquubo aanay u horumarinoo xuquuqdii lagu lahaa aan laga goynin xuquuqdii lagu lahaa aan laga goynin waataynu soo sheegnayo 3 xaq inay ku tacalluqaan alkabiiratu الثالثة kabiirada saddexaad waxa weeye asixru sixirkii iyo falkii waayo lianna saaxira sixirooluhu laabudda waxaa lagama maarmaana an yakfura inuu gaaloobo sixiroole waa gaal qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi walaakina shayaadiina shayaadiinta ayaa kafaruu gaaloobay maxay ku gaaloobeen yucallimuuna annaasa dadka ayay barayaan asixra sixirka ayay barayaan waxaa ka horraysay wamaa kafara sulaymaanu walaakina shayaadiina kafaruu waxay yidhahdeen nebi sulaymaan wuxuu dadka uu ku haystaa shayaadiintan loo sakhiray sixir buu ku haystaa tii baa qur-aanku ka jawaaba waxaa la yidhi wamaa kafara sulaymaan sixir waa gaalnim wamaa kafara sulaymaanu walaakina shayaadiina kafaruu sulaymaan ma gaaloobinoo waa nebi ilaahay oo hadhiyo habeen loo waxyoonaye shayaadiintaa gaalowday maxay ku gaaloobeen yucallimuuna annaasa dadka ayay barayaan asixra sixirka ayay barayaan marka sixirka fal ahaan in la sameeyo waa gaalnimo in la barto tacliimtiisuna waa gaalnimo wamaa lishaydaani shaydaanka uma sugnaanin shaydaankii almalcuuni malcuunka ahaa qaradun ujeedo uu ka leeyahay fii tacliimihi baritaanka uu barayo alinsaana insaanka uu barayo yacni asixra sixirka uu barayo ilaa liyushrika bihi inuu ilaahay subxaana wa tacaala u shirki sameeyo inuu saaxirka uu gaaloobo mooye dan kale kama leh shayaadiintu qofkan u shaqayn mayso ilaa gaalnimo isaga ay ku rido inuu gaaloobo maqsadka iyo ujeeddadaasayna u baraysa maaha tacliin si bilaasha shayaadiintu ay qofkan u siinayso wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi can haaruuta wamaaruut can haaruuta wuxuu ka yidhi iyo wamaaruuta maaruut wuxuu ka yidhi 2 malag bay ahaayeen ayb wamaa yucallimaani ma baraan 2 malag min axadin ruux ma baraan sixirka xataa yaquulaa ilaa ay yidhaahdaan inamaa anagu naxnu anagu fitnatun fitna ayaanu nahay falaa takfur ha gaaloobin barashada sixirku waa gaalnimo fayatacallamuuna waxay ka baranayeen minhumaa labada xaggooda waxay ka baranayeen yacnii maa shay bay ka baranayeen yufariquuna bihi ay ku kala kaxeeyaan bayna almar'i ruuxa dhexdiisa iyo wa sawjihi xaaskiisa waa nooc sixirka ka mid oo xaaska iyo ninka in la kala kaxeeyo sixru tacdiil baa la yidhaahdaa ayb ayadii baa loo soo gelin abeesaa looga dhigi wax kale ba u soo uraysa asagii baa guriga soo geli ama iyadaa yani isaga wax kale looga dhigi libaax mas balaayo ku soo ordayo buu noqonaya ayib halkan marka xaggee daliilka gaalnimadu kaga jiraa imaamku uu daliishanayo wuxuu kaga jiraa inamaa naxnu fitnatun falaa takfur war annagu malaa'ig ilaahay subxaana wa tacaala oo fitno lilibtilaa'i waalikhtibaar loogu talagalay baanu nahay ee ha gaaloobin ayay leeyihin waxaa iman karta marka ishkaal ah malaa'igtu laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun ee maxay tahay mufasiriinta dhexdooda aayaddan dood baa dhex taallo qaarna malakeyntaasay ka carareen ilaa ay ta'wiil isku dayeen oo malikayn laanka inay hoos dhigaanoo 2 boqor bay ahaayeenoo kada qolana aayadda daahirkeeday ku socoto waxay yidhaahdeen 2 malag bay ahaayeen ilaahay waa facaalun limaa yuriid malaa'igtuna waa mudiiciinoo ilaahay bay adeecaan laakiin waxaa loo jeeday lilibtilaa'i waalikhtibaari waalimtixaan ummaddu inay kala baxdo ayaa loo jeeday ayib ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ilaa an qaala ilaa ilaahay uu ka yidhi subxaana wa tacaala walaqad calimuu waxay ogaadeen laman ishtaraahu ruuxii sixirka iibsaday yacni laman ruuxoo ishtaraahu sixirkii soo iibsaday wuxuu ogaaday maa lahu inaanay ugu sugnaanin fi laakhirati aakhiro iyo nolosha dambe min khalaaqin wax nasiiba iyo wax dheefa aakhira inaanu ku lahayn fataraa waxaad arkaysaa buu yidhi imaamku khalqan khalqi baad arkaysaa kasiiran badan
oo min ad-dullaali dadka lunsan kamida kuwaasoo yadkhuluuna u gelaya kuwaasoo yadkhuluuna gelaya fi sixri sixirkii gelaya macnaha falkii sixirka inay sameeyaan bay gelaya wayadunnuunahu waxay u malaynayaan xaraaman faqad xaaraan keliyay u malaynayaane gaalnimo u malayn maayaan wamaa yashcuruuna mana dareemayaan annahu sixirkii alkufra gaalnimo inuu yahay fayadkhuluuna waxay gelayaan fii tacallumi siimiyaa fii tacallumi inay bartaan asiimiyaa indhasarcaadka siimiyaa waa indhasarcaadka ayib wuxuu kaaga dhigi neefkan inuu indhaha afka ka gelayo gadaal uu ka baxayo wuxuu kaaga dhigi qofkani inuu gubanayo indhihii yani bini aadamka ayaa waxaa loo bedelayaa qof halkaa maraya waxaa lagaaga dhigayaa inuu qaawan yahay qiso intay ka dhacday niman wadaadda ay iga warramayeen oo gobol ka dhacday intay meel dacwo ah u tageen baa waxay arkeen nin dadkii oo dhan rigaystay ummaddii rigaystayoo yidhi 100 yani intaasoo adhi intaasoo geela haddaan la ii keenin waa laydin baabi'inaya maxaa dhacay awooddayda haddaan idin tusayaa buu yidhi bal awrii keena awr baa loo keenay dadkiiba wuxuu uga dhigay intuu dhinac istaagay inuu awrkii markuu afka kala qaado afka uu ka gelayo oo gadaal ka baxayo caamadii oo dhan wuu rigaystay asagoo 100 adhi iyo xoogaa loo ururiyey baa niman wadaaddaa meeshii tageen noo geeyey yidhaha annaga aayad kursiday la ag istaageen isagoo mee awrkii dhinac ordayo digifdigifluun baa la arkay war aaway wixii samee awrka ka dhex bax nin baa halkan aayad kursida isla taagay raad wuu dhaqaajin waaye sixiroole marka haddaad aragto labada qulacoodu iyo haddii ilaahay ku run yahay iyo qul huwallaha iyo aayad kursida haddaad qabsato indha sarcaad iyo digdigtaas iyo damdamtaasi ma shaqaynayso laakiin awoodda aad kula dagaalamaysaa waa in adigu aad qalbigaaguna uu qoyan yahay taqwo iyo iimaanna aad leedahay ilaahayna subxaana wa tacaala aad ku kalsoonta fii tacallumi siimiyaa indha sarcaadka yacni inay bartaan bay gelayaan iyo wa camalihaa inay sameeyaan wahiya iyaduna maxdu sixri waa sixir badhaxla wa fii caqdi almar'i ninka in laga xidho can sawjatihi xaaskiisii in laga xidho ayay gelayaan oo baranayaan oo samaynayaan wahuwa kaasina sixrun sixir waah xaaska in ninka laga xidho xaaskiisa laga joojiyo waa sixru tacdiilkaynu soo sheegayn wa fii maxabati sawji ninka in la jeclaysiiyo limraatihi haweenaydiisii in la jeclaysiiyo iyo wa fii buqdihaa iyadii in loo cadhogeliyo iyo wa buqdihi in isagii loo cadhogeliyo sixru taxbiibkuna waa baashii aynuu naqaanay madiidada way inoo iman doontaa ayib iyo wa ashbaahi dalika arrinkaa wixii shabahan bikelimaatin kelimaad buu isticmaalayaa majhuulatin laga jaahil yahay akharuhaa kelimaadkaa badankoodna shirkun waa shirki iyo wa dalaalun baadi weeye kelimaadka uu isticmaalaya xataa kuwan qardhaasaha qora makaraanka iyo qardhaasaha sameeya intooda badan qur-aankuma qoraan annagaa 10 iyo in ka badan furfurna magacyo jinni iyo xidigo iyo goobooyin baa hal eray oo yani suntaa lagu dhexgeliyo qur-aan lagaaga dhigayo baa bismillaahi la dhexgelinaya ama arraxmaani keliya la dhexgelinaya ayib waxa uu meesha ku qoray dhammaantood waa magacyo jin oo xiriir uu la leeyahay marka sheekhu wuxuu yidhi waxay isticmaalayaan bikelimaatin kelimaad oo majhuulatin laga jaahliya akharuhaa badankoodu shirkun wa dalaalun waa shirki iyo baadi waxaddu saaxiri sixiroolaha xadkiisu waxaa weeye alqatlu in la dilo weeye ayib liannahu maxaa yeelay kafara billaahi ilaahay buu ku gaaloobay subxaana wa tacaala aw daraca alkufra ama gaalnimadii buu shabbahay qaala nabiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi ijtanibuu ka dheeraada asabca almuubiqaat 7 dembiya waxaa laga ka dheeraada fadakara minha wuxuu ka sheegay asixra sixirka ayuu ka sheegay falyattaqi alcabdu addoonku ha ka baqo rabbahu rabbigii ha ka baqo walaa yadkhul yaanu gelin fii maa shay oo yaksuru uu ku khasaarayo bihi maagaasba addunya waalaakhira adduuniya aakhiraba uu ku khasaaray walaa yadkhulu yaanu gelin addoonkii fii maa shay oo yaksuru uu ku khasaarayo bihi maagaasba addunya waalaakhira adduuniya aakhiraba uu ku khasaarayo haddii sixiroolihii xadkiisii la yidhi waa gaalnimo
ninka u tegayna nebigu wuxuu yidhi man ataa caraafan aw kaahinan fasadaqahu bima yaquulu faqad kafara bima unzila cala muxamedin sala allahu aleyh wasalam sidoo kale nebigu wuxuu yidhi man ataa caraafan sixiroole iyo faaliye iyo wax sheegsheeg ninkii u taga lam tuqbal lahu salaatan 40 leylatan 40 habeen salaad laga aqbali maayo 40 habeen salaad laga aqbali maayo nebiga waxay weydiiyeen salawaatullaahi wasalaamu calayh mararka qaarkood bay noo sheegaan warkaasaa run noqda maxaa ka jira laysa bishay buu yidhi wax jira maaha yacnii hal kelmadood oo xaqa buu shayddaanku kor ka soo maqlaa markaasuu midkii la shaqaynayay dhegta ugu tuura markaasuu 100 beenood uu ku daraa buu nebigu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh ويروى وحال وريا عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحال وريا أنه قال إن الحد الساحر السحر ولا حد كيسو وضربة قراعد بالسيف سيف إن لقوا قراعوا لجل والصحيح الصيد الصحيحة وحوي أنه يعني حديث كان من قول جندب بن عبد الله وي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام جندب بن عبد الله الحديث صح موقوفا يعني سوى موقوف أيو أنصحي لكن ما أنصحين حديثكم يسقى مرفوعة قصة جندب بن عبد الله بيكون عظم سيدة أورينيو يعني المسي في تهذيب الكمال مجلد كشناد بقول أفرطني يصدح أبو قاسم البغوي في معجم الصحابة وكورينيو ضبراني في المعجم الكبير وكورينيو والبيهقي في السنن الكبرى أبي عثمان النهدي باوحوا لي جندب بن عبد الله باوحوا دلينين سحر ولاء وليد بن عقبة ورجع مرضى غير بني أمية كمدها أيا وحو يرنين سحرولها نينكي سحرولها أها أيا وحو تسي وحل إلى هذا دمشاد يلا بكو حوض بيسدل يومدنا لتشبينا يتسي ضدك مركز جندب بن عبد الله أنتو الصوق قاضوا مرة سوه اللابتي أيو دلي نينكي بصيف قلق قصار ضدك باك لياعي وحولي وروحبها كلياعينه idinka idinma jeedin inaan idin argagax geliyo ninkan sixiroolahan doonaya inaan dilo afata'tuuna sihra wa antum tubsiruun ayadaasu akhriyay waa la xiray adigu markii dambe waa la sii daayay saxaabiga وقال وحيد بجال ابن عبدة يا وحيد أتانا وحنويمي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنويمي قبل موته إنتان لمن كهر بسنة سنة كهر عمر بن الخطاب إنتان لمن وريكته يدنبال يفرين وصوص ريبان نوتمي أن اقتلوا الله كل ساحر متكستو سحر ولا يو ساحرة هوين كستا أو فلك إيا سحر كتقان وحيد فقتلنا 3 سواحر وريكتدي بان نفلين صدح سحر وليالا ندلني وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه تعالى وحال قولي أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال وحيدي 3 صدح لا يدخلون الجنة جنة قلمايان مدمن خمر جميدك دائما وقادع رحم قراب قيس ومصدق بالسحر يمدك سحر كالرميست يعني دخول كاسنا وحين دخولا مطلقا يعني دخول مطلقة أو حساب لآنا وهدي إلى يكون يوحي حقوق يدن بقلين أن لقسوا قوينين مقليان حديث هو صحيح هو صحيح هذا لح بقول هدي إلى يكون يهي تضباتني يسديد رقمك إمام أحمد با في مسنده يعني مكة كورني حديثك أو يعلى يا في مسند كورني ابن حبان أي يسقون ورني خرائدي في مساوي الأخلاق والحاكم في المستدرك وعن ابن مسعود عبد الله بن مسعود وحال قوري رضي الله تعالى عنه مرفوعا وحول الرقى اسكتفك وحلا اسكتف إيا والتمائم قرداسها إيا مكرانكو إيا والتولة مديددو شرك وقال نمو أيها النبي صلوات الله وسلام عليه وشركي وحا أباهن أن كلمة إن لفافة هي كلمة الرقى اسكتفك waxaa loo qaybinayaa waxaan la isku tufayo 2 qaybood baa loo qaybino hadii waxa la isku tufayaa oo quraan iyo dhikri iyo adkaar uu yahay waa banaanya xadiiska imaam muslim fi sahihi uu ku warinay nabigu wuxuu yiri a'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi shirkun ruqyadiina iyo tufmadiina isoo bandhiga dib male buu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam alayhi isku tufka hadaan aanu shirki ahayn طيب شروط يعني marka laga doonayaa waxa weeye
shaygan la isku tufayaa saddex shardi haddii laga helo culimmadu waxay ku ijmaaceen inuu bannaan yahay kow an yakuuna bikalaami illaahi ow biasmaa'ihi wa sifaatihi wa bilisaani alcarabi inuu waxaan la isku tufayaa qur-aan yahay ama magacyada ilaahay iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa ama shay luqada carabeedoo la fahmayo marka uu yahay dayib wamaa yucrafu macnaahu iyo wax macnihiisa la fahmayo haddaad jinniya xaadiriso ruqyadaasi ma bannaano wa an yactaqida ana aruqyata laa tu'asiru bidaatiha qodobka labaad waa inaanu ictiqaadin ruqyadani inay iyadu saamayn leedahay wuxuu ku dawoobayaa ay tahay ilaahi subxaana wa tacaala in qadartiisa uu ku dawoobo bal bitaqdiiri illaahi tacaala dayib tiwalada iyo madiidada iyo kuwan kale haddii ilaahay kuu ron yahay xukunkoodaasay caamkoodaasay ku ahaanayaan atiwalatu madiidadu waa nooc weeye min asixri sixirka ka mida wa huwa kaasina waxa weeye waa taxbiibu almar'ati haweenayda in la jeclaysiiyo ila sawji ninka in la jeclaysiiyo haddee madiido waad garanaysaan dhengad baa la soo qaadi sixir baa waxbaa lagu dhufan ninka naagtu ay diidaan naagtii baan kari waaye gabadh reeroodoo meel joogto wuxuu leeyahay gabadhaasaan rabaa inaan la baxo inay raacdo hay ushaa ku dhufaa la leeyahay sidii neef lo-a iyadaa ku daba ordaysa marka waa taxbiibu lmar'ati haweenayda in la jeclaysiiyo ila sawji ninka waatamiimatu tamiimaduna kharasatun kuul weeye tarudu alcayna ay aaminsan yihiin inay isha celiso waclam ogow buu yidhi hadalkii horuu tacliiqinayaa shiikuyo wuxuu kala saarayaa qofka ficilkan u sameeyey isagoo aqoon u leh iyo qofkii jaahilka ah waclam ogow buu yidhi ana kaiiran in badanu min hadihi alkabaa'iri kabaa'irtaa ka mida bal caamatihaa dhammaanteed ila alaqala wax yaroo ka mida mooyaane yajhalu waxaa ka jaahila oo xukunkiisa aan garanayn khalqun khalqi oo kaiirun fara badan oo min alummati ummadda ka mida taxriimahu xaaraannimadiisay ka jaahil yihiin wamaa balaqahu ma gaadhin assajru nahyigii iyo reebitaankii fiihi kabaa'irtaa layska reebay iyo walal waciidi waciidkii ku soo arooray fa haada darbu noocaa isagaa fiihim dhexdooda waxaa ahaaday tafsiil iyo faahfaahin ba ahaaday fayenbaqii waxaa habboon lilcaalimi ruuxii caalimka ahaa ee cilmiga sharciga xambaarsanaa waxaa u habboon an laa yastacjila inaanu ku degdegin cala aljaahili ruuxii jaahilka ahaa xukunka uu xukumayo inaanu ku degdegin bal yarfaqu bihi wuu u dhimrinayaa wa yucallimuhu wuu barayaa mimaa shaygii callamahu allaahu ilaahay uu baray walaa siyamaa siiba kuma sii jirto idaa kaana hadduu yahay qariibu lcahdi cahdigiisa iyo islaamnimadiisu miday cusub tahay qariibu lcahdi bijaahiliyatin islaamnimadiisu miday cusub tahoo jaahiliye ka soo galay oo qad nasha'a ku barbaaray fii bilaadi alkufri dhulka gaalada ku barbaaray albaciidati ee fog wa usira waa la soo qafaashay oo wajuliba waxaa loo soo jiiday ilaa ardi alislaami dhulka islaamkaa loo soo jiiday wakhtigiisii buu ka hadlayaa imaamku dee imaam muslimiintu yacni markaa ay xayiga ahaayeen walxaal huwa isaguna turkiyun turki uu yahay kaafirun oo gaal ah ow kurjiyin ama kurji uu yahay kurjiga waa adarabijaan dhulkan la yidhaahdo oo markaa boqortooyadii roomaanka soo hoosgelaya wey ow kurjiyin ama nin yacni kurji reer adarabijaan ah oo mushrikun mushrika oo yacni mushrikun mushrika oo laa yacrifu bilcarabi carabiga aan garanayn faishtaraahu waxaa soo iibsaday amiirun amiir oo turkiyun turkiyaa soo iibsaday oo muslim oo laa cilma cindahu agtiisa aan wax cilmi aanayo walaa fahma fahan diineedna aan ilaahay subxaana wa tacaala uu siinin midkaasi fa biljuhdi dadaal ayaa xaasilun waxaa ugu xasilaya yacni in talafada hadduu ku hadlo bishahaadatayni shahaadateynka hadduuba ku hadlo taasaaba ayaan iyo nasiib ah wuxuu turkiga iyo u soo qabsaday wakhtigaas qayb gaalo ahina waa ku jirtay bulsho ahaan marka la eegana waa bulshada ugu fog luqada carabiga bulshada ugu fog ee uu ku adag yahay waay ayb marka nin noocaasa oo la soo qafaashay oo nin boqora iskala jooga boqorkaasina isaga diinba aanu waxba ku dhaamin hadduu masaa'ishan kabaa'irta uu ku dhaco aqoonteediiba male
wixii lagu xukumi lahaaba cilmigii iyo balaaqii sharciga ama gaadhin buu u jeeda hadduuba shahaadateynka ku hadlo taasaaba markaa dadaal ah fain fahima hadduu fahmo bilcarabi carabigii hadduu fahmo xataa yafqaha ilaa uu fahmo macna shahaadatayni shahaadateynka macnihiisa bacda ayaamin maalmo ka bacdi iyo walayaalin habeenno ka bacdi fiihaa ay fabilcaziimati akhada go'aan buu ku qaatay yacni fabihaa wanicmat waxaa nicmo lahaaday go'aankaa iyo casiimadaa u qaatay uma qad yusallii inuu tukadaa laga yaabo waqad laa yusallii inaanu tukan baa laga yaabo waqad yulaqanu in loo talqiimiyo oo loo afmeeriyo afka loo geliyaa laga yaabaa alfaatixata faatixada maca duuli yacni wakhti dheer in kaana ustaaduhu ustaadkiisu hadduu yahay fiihi diinun maa wuxuun diinihi haddii yacni ustaadkiisa ninka sayidkiisa wuxuun diina hadduu u leeyahay muddo dheer ka bacdi inuu u afgeliyo faatixada ayaa laga yaaba fain kaana ustaaduhu ustaadkiisu hadduu yahay shabiihan bihi mid isaga shabaha famin ayna xaggeebuu yacni uga ahaanayaa lihada almiskiini miskiinkan an yacrifa inuu barto sharaa'ica alislaami shareecada islaamka inuu barto iyo walkabaa'ira dunuubta waaweyn iyo wajtinaabaha ka fogaanshaha yacni inuu dunuubta uu ka fogaado iyo walwaajibaati waajibaadkii iyo waityaaniha inuu la yimaado fain curifa haada arrinkaa haddii la baro muubiqaati alkabaa'iri dembiyada kuwooda ugu waaweyn yacnii kuwa lagu halaagsamayo haddii la baro oo waxudira minhaa looga digo yacnii oo waculima la baro arkaana alfaraa'idi faraa'idda yacni arkaantooda la baro oo wactiqadaha uu ictiqaado fa huwa saciidun yacni mid liibaanay wahay wadalika kaasina naadirun waa yar yahay annaadiru laa xukma lah fayanbaqii lilcabdi addoonka waxaa u habboon adiguu kula hadlayaa marka islaamnimada ilaahay kuu hibeeyey luqadii carabiga inaad barato ilaahay kuu hibeeyey yacnii galladaa ilaahay uu kuu galay buu ku dareensiinaya sheikhu fayanbaqii lilcabdi addoonka mu'minka waxaa u habboon an yaxmad allaha tacaala ilaahay inuu ku mahadiyo subxaana wa tacaala cala alcaafiyati badbaadada iyo sabata bixinta ilaahay subxaana wa tacaala luqadii carabiga iyo qur-aankii inaanu garanayn inuu ilaahay uu kaa badbaadiyey oo islaamnimo kuu hibeeyey qalbigaagana iimaan u geliyey yamunuuna calayka an aslamuu qul laa tamunuu calaya islaamakum bal illaahu yamunu calaykum an hadaakum liliimaani in kuntum saadiqiin fain qiila haddii la yidhaahdo su-aalna la weydiiyo oo la yidhaahdo huwa isagu farada wuxuu ku gabood falay likownihi ahaanshihiisa u ahaaday maa sa'ala inaanu weydiin camaa yajibu calayhi wixii ku waajibayay haddaanu isagu wax garanayn muu culimmada wax weydiiyo hadday su-aashaasi timaado qiila waxaa la leeyahay haada kaasi maa daara fii ra'sihi madaxiisa kuma wareegin su-aashaasi madaxiisaba kuma soo dhicin ayb wala stashcara mana aanu dareemin anna su'aala man cid su-aashiisu yucallimuhu bara arrinkaa bara yajibu calayhi inay dushiisa ay ku waajibtahay horta waxaaba gallad ilaahaya in ilaahay uu ku dareensiiyo waxbaa kaa maqane waxni ma xalaal baa mise waa xaaraan baa bal horta culimmada weydii arrinkaasi qalbigiisa kuma soo dhicin waman lam yajcal illaahu ilaahay ruuxaan u yeelin lahu isaga nuuran nuur waa iimaankii qalbiga ku jiray uu iftiinsanayey waa sharcigii iyo risaaladii nuurku famaa lahu min nuurin nuur uma sugnaan falaa ya'samu axadun ruuxu dembaabi maayo ilaa bacda alcilmi ilaa cilmigii sharcigahaa masalada xukunkeedii inuu ogaado mooyaan iyo wabacda qiyaami alxujati calayhi xujadii inay ku qumto dushiisa wallaahu allana subxaana wa tacaala ladiifun alla u tudhid badan weeye bicibaadihi addoomihiisa ra'uufun bihim alla u tudhid badan weeye subxaana wa tacaala qaala allahu tacala ilahi wuxuu uhi wamaa kunna manihin mucadibiina kuwa cadaabaya ummadaha xataa nabcaa rasuulan ilaa aan rasuul ka soo bixino ilaa aan rasuul u dirno xujada ku ooga waqad kaana waxay ahaayeen saadatu saxaabati saxaabada madaxdoodii waxay ahaayeen bilxabashati xabashiday ku sugnaayeen markay hijroodeen wayansilu lwaajibu waajibkuna wuu soo degay iyo wataxriimu xaaraannimadaa soo degaysay shay la xarimay cala nebiyi sal alla aleh wasalam nebiga dushiisay ku soo degaysay falaa yabluquhu maanu gaadhayn shaygaa la xarimay yacnii xukunkiisa taxriimuhu xaaraannimadiisu ilaa bacda ashhurin bila ka bacdi mooyaane
fahum iyagu fii tilka alashhuri bilahaa shayga xaaraannimadiisu aanay soo gaadhin macduuruuna kuwo loo cudurdaaray bay ahaayeen biljahli jahli loogu cudurdaaray xataa yabluqahum annas ilaa nasku yacni markaa uu soo gaadhay xataa yabluqahum ilaa uu soo gaadho annasu nasku uu soo gaadho fakadaa sidaas oo kale ayaa yucdaru loogu cudurdaarayaa biljahli jahli loogu cudurdaarayaa kullu man mid dhammaantiyo yacnii kullu man mid dhammaantii lam yaclam aan ogeyn shaygaa xukunkiisa xataa yasmaca annasa ilaa naska uu maqlo wallaahu tacaala aclam waxaa jira waxa la yidhaahdo iqaamat alxuja ruuxu inuu fahmo bayaankan sharciga ah horta waxani ma xalaalba mise waa xaaraanba asagoo bayaankan sharciga aan fahmin xukunkii sharcigaha dushiisa lagu oogi maayo ilaahay baa wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhuda wayatabic kayra sabiili اlmu'miniin nuwallihi ma tawallaa wma kana allahu liyudila qowma bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun qofkan xukunkan sharcigu waa inuu caddaado markuu u caddaado xaaraannimadiisii u caddaado ayaa mukhaalafada uu khilaafayna markaa loo ciqaabi axkaamtii ka ratibmaysayna markaa loogu xukuminaya walidaalika qaacidada sheekh islaam ibnu taymiya oo shiikhiisiya in badan buu majmuucu lfataawaha uu ku taqriiriyaa oo uu yidhaahdaa xujada yacnii qofkii khilaafa aanu gaalnimada ku xukminaynaa waxa weeye waa xujadii sharciga ahayd markay ruuxii u caddaatay haddii ilaahay kuu ron yahay wax maanicoo ka hor istaagayna aanay jirin ayaanu markaa aanu ictibaarinaynaa ruuxaas xukunkii sharciga ahaa markaa in lagu qaado khulaasada waxa weeye marka sixirka inuu ka mid yahay kabiira min alkabaa'ir uu ka mid yahay inaan loo dhowaanin in ummadda looga naseexeeyo dad badan baa u furtay meel u furtay macnaha dhakhtaariya kinyeji oo meelaha yani laga taagan yahay oo dumarkii meelaha lagaga maqnaayo xoogaa aada u dhiban oo raggii in badan oo ka mida xuquuqdoodii ay fulin waayeen january baan iman buu odhan march bisha saddexaad baan iman sanadba sanad buu u dhiibi ayaa u tegaya waxaasay yacni moodeen inay wax hayaan oo qaybka ay wax ka og yihiinoo may anaa kuu soo dadejinaya buuli ninkii isagoo boorsadii wata anaa kuu keenayo kuwo waxay leeyihiin odaygii baan fahmi weynay in la qaboojiyaan rabnaa ayb ma ujeeda waxaas oo dhan marka waa in diin la'aantaas dumarkaa ku badane waa in looga naseexeeyaa waa in la yidhaahdaa yacni sixirku waa kabiira min alkabaa'ir alkabiiratu araabica kabiirada afraad waxa weeye waa tarku salaati salaada oo laga tago qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala fakhalafa waxaa dib maray ambiyadaa iyo dadkaa wanaagsan ee aan ka sheekaynay min bacdihim iyaga gadaashood waxaa dib maray khalfun kuwa hadhay oo adaacu salaata salaaddii dayacay oo watabacuu shahwaati shahwaadkii iyo naftu wixii ay jeclaysanaysay raacay fa sawfa saban dambe yalqowna la kulmi doonaan hayan waadin fii jahannama waadi yacni tog jahannamo ku yaallo qayin la yidhaahdo ayay la kulmi doonaan ilaa man taaba ruuxii toobad keenay mooyaane oo wa aamana alla rumeeyey aayaddu waa aayaadka culimmadu ay u daliishadeen ruuxa taariku salaadka ahi ama cajsi iyo wahsi ha uga tago ama xukunkeeda ha diidanaade inuu gaaloobayo xaggee ka daliishadeen ilaa man taaba maxaa laga dambaysiiyey wa aamana rumeeyey iimaan ma leh wa qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi fawaylun halaag wuxuu u sugnaaday waadi naareed lilmusalliina kuwii tukanay alladiina kuwaasoo hum iyagu can salaatihim salaadooda saahuuna hilmaansanaa yacnii fii salaatihim salaadooda dhexdooda nisyaan iyo sahwi la imaanayey ilaahay ma odhan raxmaddiisa iyo naxariistiisa qof kastaaba salaaddiisa waa ku sahwiyaya bal nebi maxamed baa sahwiyey ayib laakiin wuxuu yidhi can salaatihim saahuun salaadoodii hilmaansanaa wakhtigeediibay dib u dhigayaan salaaddiibay haddii ilaahay kuu roon yahay qiimihii iyo xurmadii salaaddu agtooda ay ka lahayd ayaan agtooda ku weyneyn alladiina ku weeye hum iyagu yuraa'uuna dadka istusayay wayamnacuuna mancinayoo diidaya almaacuuna maacuunta yacnii dadkii dariska iyo ummaduhu
macuunta waxa laga waxyaabaha had iyo goor darisku ay kala qaataan ay u baahan yihiin ayay mancinayeen oo diidayeen وقال تعالى إلهي وحول أهل النار كما كورمي ما سلككم محايد سومري في سقر نار السقر إلى محايد سومري جوابتك ووضع بحيا وحيدا قالوا وحيدا لم نكن ما نحين من المصلين كوة كذا كمان مدحين لبتنا نفاعضي سببت نلقوا لي بأيوا سببت وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحول العهد بلنكي الذي بلنكاسو بيننا أنك لحظة يضع iyo wa baynahum munaafiqiinta dhexdooda ahaaday as-salaatu salaada weeye faman tarakaha ruuxii ka taga faqad kafara wuu gaaloobay baynana wa baynahum as-salaa wa baynahum damiirkan dambe waxaa loo celinayaa munaafiqiinta loo celinayaa in badan ee dadyowga meelaha wax ka laqlaqbeeya waa khaldaan maxaa yeelay gaalka dhiigiisa salaada waxaa ka horeysa tawxiidka inuu qiro fa in taabuu wa aqaamuu salaata wa aatawu zakata fakhalluu sabiilahum ama fa ikhwaanukum fi diin laakiin qofka dhiigiisa cismada yacni salaada ku hela ee salaadu ay badbaadisaa waa munaafiq gaalka waxaa badbaadinaya jisyo oo bixiyo waxaa badbaadinaya tawxiidka inuu qiro kadibna yacni markaa uu salaadii la yimaado نبي وحيد وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحيد من فاتته روحي كتكتو صلاة العصر صلاة عصر روحي كتكتو حبض عمله عمل كيسوا بري طيب وأدلة أي دليشنا يعني علماء قبل تارك الصلاة حتى واسع يدو قتقوا إنه قاليه رواه البخاري وورينيا يعني البخاري وورينيا من حديث بريدة وعنه صلى الله وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحيد بين العبد أدونك iyo wa bayna shirki iyo shirkiga iyo gaalnimada waxa u dhaxeeya tarku salaati salaada oo laga tagaa u dhaxaysa adoonkii halkan dhig gaalnimadiina halkan ay taala maxaa u dhaxeeya macnaha gaalnimada ruuxa waxa ka badbaadinaya oo u dhaxeeyo deyn u ah maxaa waa salaadi dayib وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم وحال قوري قال وحري من ترك الصلاة صلاة الروح كتغى متعمدا استغى أكسيا يعني عمدي يكس أكتغى فقد برئت منه وحابريك النقطة ذمة الله إلهي دمديسها روحا صلاتك لمقنت إلهي كمتشر لكن صلاة سوحده مركز أصوك عضي في ذمة الله مقنت إلهي باتكتشرت إلهي بان وحو ليهي ديمديدا iyo magantayda ruuxa ku jira hay dhaafina ayu Allah subhanahu wa ta'ala qala makhul wuxuu yiri an abi darr qalahu makhul an abi darr lam yudrikhu makhul ash-shami ad-dimashqi abu darman halilin lakin shawahid kalu hadithku uu leeyahay yani marka sheekh albani wuxuu yiraahdaa wal jumlatu yani anna al-haditha bihadha ad-dariq sahih bi shawahidihi bila rayb إرواء القليل أي سيدة كويري الله بكون يصدني لحرقنك وقال عمر رضي الله عنه وحوري أما إنه أرنك شان وحويه لا حظ نصيب يدفك ومسقنا لأحد روح في الإسلام إسلام كالحديثة روحا سو أضاع الصلاة ضيعي سقو عمر سكرات كي كتشرة سقو مركي الله ورمي حالده وجودا بيسي كتشرة بالي الصلاة دي أمير كي مؤمنين توه إنه عافمات قبنا أنه الحاد كيني ودميسترنيه أديكو ساكا عافمات كسو كعي باحوغا الدنيا انتينا مشغولس بالغيها إنه رقعده وقدام بيسا اسكسو بيك نصيب كماله روحي إسلامك بحديث النصيب كماله روحي صلاة ضيعي وعمر بن الخطاب وقال إبراهيم النخعي وحوري من ترك الصلاة الروحي كتك فقد كفر وقالوا بي وقال أيوب السقطياني أيوب بن أبي تميمة السقطياني وحوري مثل ذلك سيدا سوكلا وروى جريري وحوري عن عبد الله بن الشقيق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحوري كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي محمد وحي أهايا لا يرونك وأنا رق شيء ومن الأعمال أعماش كمذا تركه كتجتان كيسا كفر قال لما أماني أركين غير الصلاة يعني الصلاة وحي عن حين
salaada in laga tago maxay saxaabadu u yaqaaneen gaalnimay u yaqaaneen wixii kale camala ee laga tago gaalnimo uma arkeenin saxaabadu طيب أخرجه الحاكم باصو صاري في المستدرك وأخرجه الترمذي الإمام الترمذي باصو صاري دون ذكر أبي هريرة يستقوا عن شيء حديث كان مركة يعني هو قول صحيح كويحي يعني من كلام عبد الله بن الشقيق بوحوليه أبو هريرة انت ماشي لقى صاره كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة وحونا حديثك الصون نقلنا يا إجماع الصحابة أسرتني وحي موتنسا إجماع الصحابة وقال ابن حزم وحوري في المحلة مجلد كوبية تبنات صفحة سقالية تبنات وحكيري لا ذنب بعد الشرك يعني الذنب قال لماذا كذنب يا مجره وأعظم كون من ترك الصلاة إن لقته حتى يخرج وقتها صلاة وقت جدي إلى أبح وقتل مؤمن روح مؤمن إلا دله بغير حق درنا لقدله وروى همام باوري أنبأنا قتادة بن دعامة السدوسي عن حسن عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن حريث ابن قبيصة قالوا حدثني أبو هريرة أيائي ورمي قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحوري أول ما شيء كوجهر يحاسب به العبد أدونك لغا حسابيه يوم القيامة مال كقيام من عمله عمل كيسة صلاته صلاة سوي فإن صلحت هديها جاكتو فقد أفلح والليباني وأنجح وانا قوليستي وإن فسدت هدي فسهادنا فقد خاب واهوغي وخسر وانا خساري أي انضر أي كدعف يعني حسنه الترمذي الإمام الترمذي في جامع كورن يونا تحسينيي حديثك دار قدنا أي في العلل سجن كجهضي نسائي أي سجن في سننه حديث كجهضي وأنا حديث حسنة وأعطينا ليس صوغ فتشني سجى حديث كي هره الذي قال لماذا كتوس يسمركو إمامك أو كامي أيو أدلة الجمهور أي دليشته وحديث كسوق هذا وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحوله أمرت وحالي فري أن أقاتل الناس ضدك إن الله دقالهم حتى يشهدوا إلى أي كقران أن لا إله إلا حق لقوا عابد إن نترين إلا الله وألمه يعني وأن محمد النبي محمد رسول الله إنه يا رسولك إلهي ارجي إلهي خلقك وفرنت وصولي بإنه ويقيم الصلاة صلاة أي أوغان ويؤتوا الزكاة الزكاة أي قتان فإذا فعلوا ذلك أرنك هذي الصميان عصموا مني وإيقا دورين حقيقة دماءهم لي قودة وأموالهم حوله إلا بحق الإسلام يعني إسلام كحق يسمويان والروح دي هدوه وحدله وقالوا دي لهدوه السنة يستحدوا دي بالقوغي وحسابهم حسابتي سنة على الله سبحانه وتعالى دوشي سيحات وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرجل النبا قالوا حري يا رسول الله يا رسولك إلهي اتق الله نبي محمد وإلهي كبق رسولك إلهي كبق أيو ليه طيب فقالوا حري ويلك ورهوغي قبل ما إنكارك قد عضي ألست سوميه أحق أهل الأرض أن أتقي الله روحا dadka arlada ku nool midka ugu mudan inuu ilaahay ka baqo ee khalqiga ilaahay ugu yaqaan soomeeyay wataan nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi inni akhshaakum lillahi wa atqaakum lahu ilaahay aniga idinku aqaanana idinku cabsi badan qala Khalid ibn al-Walid ba wuxuu radiyallahu ta'ala ala adrib unuqahu miyanan luqunta ku dhufanayn ninkan nabi maxamed oo cadaaladaadii duray ee wax ka sheegay لغنت ما كل فتا مدلا يا رسول الله رسولك إلهي فقال النبي وحوري لا ميا لعله وحمدن يهي وحال غيابا أن يكون يصلي يعني إنه يهي ميت كذا لغيابا إنه تكذي ليجي سأكادي صلاة دي محين نقطة مانع ننكا ليجي سمن عصي وحان نقطة محي صلاة دي إلا عدالة النبي محمد أولا الدره وليه هذا ماذا عدالة سمين إن كان إلهي كبق مركو ليه وحول اعدل يا محمد عدالة سمين محمد واحد سمين سوح الوضع القاضن كرم معها وكاسا النبي صلوات الله وسلام عليه وحد شوابه وحول
faman yacdil idaa lam yacdil illaahu warasuulah yaa cadaalad samaynaya ilaah iyo rasuulkiisu haddaanay cadaalad samayn asagaa fahamku la qalloocday wuu isla quman yahay ayib nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi alaa ta'minuunii wa ana amiinun fi samaa miyaydaan i aaminayn iyadoo samada layga aaminay yaatiinii khabaru samaa yacni khabarkii samada ii yimaada sabaaxan wa masaa'an ayuu ii yimaada faahfaahin badan baa ku jirta xadiiska iyo xukunka taariku salaadka intanaan dhammaynaya waqtigaa iga dhacay warawa alimaamu axmed baa warinaya fii musnadihi min xadiisi cabdillahi bni camr radia allahu tacaala canhuma can nabiyi sal alla alيh wasalam annahu qaala nebigu inuu yidhi man lam yuxaafid ruuxaan ilaalin oo xifdiyin cala asalaati salaada ruuxaan ilaalin lam yakun lahu uma sugnaaninoo qiyaamada ma helayo nuurun nuur addoommada mu'miniinta waxay jidka siraad kaga gudbayaan yascaa nuuruhum bayna aydiihim wa biaymaanihim nuur male waa laga demin walaa burhaanun xujana uma sugnaanin walaa najaatun badbaado iyo samatabaxna uma sugnaanin wa kaana yowma alqiyaamati maalinka qiyaame wuxuu ahaadaa maca qaaruuna wa fircawna wa haamaana wa abi jahlin wa ubay bni khalaf raggaasoo dhan buu la jirkooda noqdo laysa isnaaduhu bidaaka sanadkiisu wax saa usii xoog badan maaha ayuu imaamku yidhi waxaa ku tusinaya markaa sanadkiisu inaanu sii xoog badnayn wuxuu yani ku jira ciisa ibnu hilaal asadafi nin la yidhaahdo alimaam alfasawi baa sheegay fii taariikhii ku sheegay mujalladka wuxuu ku tilmaamay fii siqaati taabiciin inuu yahay xadiisku marka shawaahid kaluu helayaa wa haadihi nusuusu nusuustan iyadaa tushciru waxay ku dareensiinaysaa bikufri taariki salaa taariku salaadka gaalnimadiisay ku dareensiinaysaa waqad qaala nabiyu sal alla alيh wasalam nebigu wuxuu yidhi limucaadin uu ku yidhi maa min cabdin addoon ma jiro yashhadu qiraya an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila allahu alle mooyaane wa anna muxameda nebi muxamedna cabduhu wa rasuuluh addoonkii ilaah iyo rasuulkiisii inuu yahay ilaa xaramahu allahu ilaahay wuxuu ka xarimay cala naari naarta ayuu ka xarimay muttafaqun calayh famu'ahiru salaati salaada midkii dibdhigay can waqtihaa waqtigeedii ka dibdhigay saaxibu kabiiratin dembi weyn miduu saaxiiba waay wa taarikuhaa midkii ka tegay bilkuliyati dhammaanteed acni waxaan u jeedaa asalaata alwaaxida salaad keliya midkii ka tegey kaman mid buu la mid yahay zanaa sinaystay oo wasaraqa wax xaday lianna tarka kulli salaatin salaad kasta in laga tago aw tafwiitahaa ama wakhtigeedii la tagsiiyo kabiiratun waa dembi weyn fain facala dalika arrinkaa hadduu sameeyo maraatin dhowr jeer kaana wuxuu ka mid noqonayaa min ahli lkabaa'iri dembiyada waaweyn dadka ku dhacay buu ka mid noqonayaa ilaa an yatuuba inuu toobad keeno mooyaane fain laazama hadduu laasimo caado iyo dhaqan ka dhigto tarka salaati salaada ka tegitaankeeda fa huwa isagu min alakhsariina kuwa khasaaray buu ka mid yahay ee alashqiyaaa ayaan darrada iyo nasiib darradu ay ku dhacdeen dhur daraystay almujrimiina ee dembiilayaasha ah wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab wa aclaa wabiاllaahi towfiiq